السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي أصحابتي أن جعلها ميل كستا جوجتين فرحتي عافماد إذن رجينا رمضان الكريم، رمضان مبارك ما شاء الله. الحمد لله إلهي جينا سو قارسيا مهد اسكاله بش بركي سنة رمضان خير كذن الله نسيو رحمة ديذن نحريست إلهي سو قلي الله نسيو كوي كفايديستين الله نقديقو. waxaan rabaa inaad la qaybsado hilibka, qudaarta, fruudka saa u diyaarsado insha Allah. Fruudkan iyo qudaartan, qudaar hadda idin oo kulley wax ku jiro koostada, inta kale fruud waaye. koostada xitaa fruud way noqon kartaa macquul. marka waxaan rabaa inaan soo jarjaro, soo diyaariyo, bacyo aan ku xirxiro, maasha Allah soo nadiifiyo, kadibna aan xareysto moos, beetroot, artibayn, kiwi, qare, batiiq, liin macaan, wax ka maqan ma jiro. koostada yaryar gooni aan soo xiraa iyo beetrootkan gooni aan soo xiraa insha Allah. inta kale laakiin fruudkan aad arkaysiin intaan soo yaryareeyo aan bac iskula shubaa insha Allah. iyo waxyaabo kalena aan rabaa inaan sameeyo sambuus iyo hilib aan soo gatay inaan asna sidoo kale aan diyaarsado. marka hadda fruudkan ku bilaabeynaa, sambuuskan ku xijinaynaa, digaagyaan u daba marinaynaa insha Allah. maxaa yeelay hilibka mar walba dooradu waxay leedahay bakteeriya badan, marka waxaa fiican inaad gadaal marisid si fiican iskaga dhaqdid. alxamdulillah marka ilaa aan kasoo fiiqo aan kusoo dhaqo kaamirada ma sii socon karto. alaabtii aan soo diyaarinaa insha Allah waan isku soo noqonaynaa. bacyada markaan kusoo xirxiraay iyo bacdan waa idiin tusaa deep freeze waaye, bacda loogu talagalay barafkan waxa lagu gashto. baraf extra markaa koraayo qudaartii ama fruudkii wax walba baraf ku noqonaa, laakiin ayaga la adkaanayan maane baraf markaa noqonayso. inta aad meel banaanka soo bixiso biyo ku shubtid oo dhalaalisid ma u baahna hadhow. wax yar saacad ka hor ama nus saac ka hor banaanka soo dhigaysaa, alaatuurna dabkaaga saaranaysaa. sambuuska camal aan ka sheekeynaa maasha Allah. qudaartii saan aan soo diyaariyay ama fruudkii aan dhahay saan aan soo diyaariyay. alxamdulillah ilaahay noo barakeeyo. marka ay nooc tufaaxan idin tusin, laakiin tufaaxan kusoo daray. inta kalena inta idin tusaay waaye batiiqi waaye kan kii qaraha u ekaayo waaye, liin macaantii, kiwi, mooskii, faroolihii. maasha Allah. maqribkii camal marka oraxda soo dhawaato inay dhacdo aa soo baxsanay juuskaaga nab isku sii juuq sii kaali arag. marka waa idin soo qaybsanaa insha Allah anoo shiidaayo. marka waa intan waxaa ii yaalo cananaastii, qaarna waan soo yaryarey qaarna saana kasoo dhigay, laakiin kulli waan yaryareynaa insha Allah. meel kasta aad joogtiin ilaahay ku amaansado. waxaa idin rajeynaa si caafimaad leh, farxad leh, qurux badan inaa soontiin, aa u soomantihiin ama aa u soonteen. ramadaan maanta koow noo ahaa. alxamdulillah haddaan soo afurnay. waraaqada aan idin sheegay ama bacdi waa tanaa deep freeze aa ku qoran. ay maata helaysaa ay cabir. hadda 1 litir saan filaaya 1 litir iyo bar waaye. marka 2 litir aa helaysaa, nus litir aa helaysaa, nus litir ka yar rubac aa helaysaa, in ka badan 2 litir aa helaysaa. marka maasha Allah deep freeze aad ay u fiican tahay. marka saan aan soo xirxiray saa hore idinku sheegay, koostadii gooni aan soo xiray, fruudkii kan waan isku soo dhex daray, bacdi aan idin tusay aan kusoo shubay kulli. toos waxay u aadayaan marka talaajada. haddana waxaan galaynaa kadibna markaan xareysano kan alaabtii kale
sambuuskaan diyaarinaa. Sambuuska haddii adi talaajad kuu taalo 10ka hore ama 15 hore ramadaanka inaad iska sii samaysatid kuu fiican, maalin walba ma taagnaan kartid. waan soo xareystay maasha allah, fruutkii waa ujeediin, koostadina waan soo agdhigaa. haddii caruur aa haysatid laazim sambuus iyo alaabo kale waa lagaaga baahan yahay, maxaa yeelay caruur meeshaan joogto oo haddana sooman sidii ay rabaan in loo sameeyo waa ku qasbanahay. alxamdulillaah. marka intan waxaa igu jiro moos bukeeni aan soo diyaariyey, marka ayagana waxaan gelinaa diifriiska. maalintiiba hal bacaan lasoo baxaa, waan karsanaa, sokor ku karso, biyo ku karso, adale waaye. meeshan waxaa yaala qudaartii aan kusoo karin lahaa sambuuska, kabashka gaduudan iyo waxaa ii yaalo kabashka cad, basal, hilib, karoot aan si yaryar aan usoo xoqay, basal baar, intaasaa ii taalo, iyo ka badan oo ku darsan kartaa. basal baartii iyo karoodkii iyo kabashkii waa kuwaan, laakiin basal cad iyo idama tusin iyo kabashka cad. hilibkii basasha intaas bar lahayd waxaa fiican qudaar kale ama waxyaabo kale inaad ku darsatid. inkastoo midkan gaduudka kabashka gaduudka asalaba ka dhigaabo wixii dhan midabkooda bedela, hadhow waad arki doontiin, xitaa hilibka midabkiis gaduuda ka dhigay. intan waxaa ii yaalo karaawdinkii ama waxa aan kusoo carfin lahaa, dhanaan ahaan ugu darsan lahaa cusbo, maraq digaag, kamsar iyo xawaajiyaal kalo, qaandada yaryar oo shaah lagu cabo waaye. intana cusbo iyo biyo iyo saliid iyo bura ii taalo, kiilo bur aan sameynaa insha allah. waan soo qasay, waan soo jarjaray, waan soo yaryareeyey, marka waa fidsanaynaa. boobsiisaan ka dhigay fiidiyowga sababtoo ah wuu dheeraanaa, intaasoo shaqaan isla qabanayay, marka inaad ku caajistiin ma rabi. hal maalin iska taaganaa wuu iska daala, laakiin ramadaanka tartiiba u samaysanaysaa. hadda waxyaaba aad diyaarsatid welwel kuguma jiro. 11 saac banaanka soo dhig ama 10 saac, xitaa 10 saac haddaad soo dhigtid kastoo bajaqoo noqonaa waxyaabaha meesha ku jiraan, laakiin 11 saac soo dhig, 12 saac dub, maqribkaaga adoo diyaarsan oo miiskaaga kuu sharaxsan oo raaxda kuu dhacdo. maasha allah. marka intaa jeceshahay oo aad awoodid iskor saaro 3, 4, 5, 6 intaa jeceshahay ilaa 10 ka dhigo haddaa rabtid, laakiin ani 3 xabaan iskor saaraa sababtoo dadaa jiro oo intaas haddee isla fadiyaan camal wax badan iskor saaraan, foolida qaar ka mide ka khasaarayso, saas ma rabi. marka 3 ama 2 ugu fudud. meelihii kala dheer iska gaarsii wax yar. foolid markii adeeg tahayna oo fidsameynin dhib waaye, kastoo iska jilciya. wallaahi iidaa kuu sheegayso sida loo fidina kaale erag waa kana maasha allah. geesaskan kusoo simaa marka insha allah. wakaas waa taasaana kula foqaysaa fudeed. haddii laakiin intaasoo xabada aadan awoodin iskor saartid, 2 xabo 3 xabo iska khasaari waayo. marka maxaa kuu geeyay inta awoodaada tahay 2, 3 ilaa 4 xitaa ka dhiga ma ku dhihi lahayn ani. laakiin haddii adi xirfadaas aad leedahayna maasha allah, keep going aan ku leeyahay walaashay ama walaalkii. waa taas foolideen saana kasoo baxday qurux jilaac
maasha allah khafiifaan ku dhahay saan hadda dhahay xitaa ma isku dhegeyso ma jabayso. marka waxyaal intaan kusoo daboolay qudaartii kale idin tusaa iyo hilibka aan isku soo daray. intan waxaan kusoo diyaarsaday burkii iyo biyo aan isku soo qasay waqtaas. marka hilibkii iyo intaa qudaar aan idin tusaayay hadda meeshaan ma u malaynaysin in wax cad ku jiro. waxaa idin dhahay saas kabashkii gaduudka bedeli wixii dhan karoodkii iyo basashii iyo kabashkii cadaaba waa la cunay kalarkooda wax kaloo noqday laakiin way noogu jiraan. intaasa muhiimada taas waaye. maasha allah miiska waxyar meeshaan ku fidinayo waaye waan iska soo tirtiraa burburay leedahay burkii aan ku fidinayo saliidii iyo wakaa dhinaca aragtida ka bilaaban kartaa laabitaanka laakiin si fiican iskugu dheji meel saliidka galaysa haday kaa banaanaato hadhow gudaha saliida u galayso sambuuska. geesaskan labada gees si fiican fartaad ugu riix wakaas dhab isku sii hadan maasha allah alxamdulillaah. marka labada gees si fiican u geli burka adiga koolada ugu dhigaysid. haddana inta oo fooliyada oo geesaskeeda soo taagtaagan ha ka tagin si fiican iskugu laab taas. saddexda geesa muhiimada ay tahay inaysan furmin muujidin inta xadar dheeraata u sameey dhab isku sii. markaan saan soo diyaariyo isna waxaan ku shubaa isla bacdii oo aan kusoo shubay qudaarta fruitka iyo moos bukeenigii waan soo dhammaystay. intaana ay noqotay ma ogi tiro ahaan intay yihiin laakiin bacdaan kusoo shubaa 2 bac ama 1 bac ama 3 bac inta kugu filan hadduu la soo bixisa bacdii ugu yaraan 12 xabaa galayso. marka bacdaada haday yar tahay oo litir tahayna adii 10 ilaa 9 xabo ilaa 10 xabo way galaysaa. hadduu yaryar yahay 10 ilaa meelahaas waa guridi kartaa. waa kaasaan oo soo habeeyey marka bacda qaarna litir bar waaye qaarna 1 litir waaye. marka tan mada weyn waxaan kusoo riday 10 xabo mada kalena 8 xabo ilaa 9 xabo adi. marka inta kugu filnaa soo qabsanaysa maalintiiba maasha allah. marka saana firiiskaan gelinay waa taas. hilibkii aadayna insha allah haddana isku daadax malahan. hilibka kartoonkaana ku jiraa digaaga kartoonaan soo gatay iyo kartoon oo luga iyo kartoon oo jikin ama jiirta digaaga. marka waa kaas bacdaana ku jiraa. kan kale waan furay waan dhaqay marka kana idin tusay. xawaajiyaashana ku darsanaa insha allah. xawaajiyaashana intaad haysatida muhiim ah ma ahan intaan ku tuso inaad raadisid wax alaal waxda haysatid ku darso. laakiin intaan isku keeno insha allah kana saus waaye. xawaajiyaashana aad idin tusi dhan kana ka muhiimsan maasha allah waan u bogay wallaahi ani. laakiin wuxuu rabiyaa bis inaad saacada aad dhigtid saacado ka hor intaad kariskiisa la gaarin inaad soo bixisid
barafka ka bixisid aa ku qastid. Xawaaji kale uma baahna, xawaajigan haddaa ku qastid oo bacda ku jiro kaali arag waay maasha Allah. Intii xawaajiyaan idin tusaayay wax yar aan iskugu keenay saxankan aan kusoo shubay sauce-kii aan kusoo daray. Marka intaan iska soo labaa hilibka jiirtaan rabaa qaar inaan sauce-kan ku daro. Waxaan ku daroyaa hadda qal ama aazayn saa u taqaanid. Hilibka jiirta idin sheegay 2 qayb aan ka soo dhigay. Qaybna waxaan rabaa sauce-kan inaan ku daro, qaybna sideeda inaan ku xirxiro. Markaan xirxiraayana waan cabiraa insha Allah. Cabir ku soco mar walbo saas ku wanaagsan. Haddii familkaaga yar yahay nus kiilo inta kugu filan. Waxaan u soo xiraa ani hadda kiilo iyo nus kiilo insha Allah waan idin tusaa. Kamsar iyo toon aan isku shiiday iyo saliid aan ku soo daray. Liin dhanaan aan ku miiroyaa. Hal maalin inta isbuucyo ama maalin kasta aad taagnaan lahayd hal maalin oo daashiya ku roon. Inta ciyaalka iskoolka jiraan waxaaga dhan samayso warku waa isku dhamaaday. Laakiin maalin kasta wax fidi, sambuus fidi, burka horta waa la sameynaa maalin kasta qasab waaye haddii burka aa cunaysiin. Laakiin waxyaabahan yaryarowgaan oo firiiska iska gelin kartid ama qaybta barafka iska gelin kartid hal maalin aa qabatid aa kuu fiican. Hadda waan soo xiray afkeeda wax yar waan la soo dhigay. Marka miisaankan yar ii yaalo intaan ku soo cabiraynaa insha Allah. rubac haddaa waa u xiran kartaa inta adiga kulley kugu filan maalintii. Yeeshadaan nus kiilo waaye intaan sinyiir camal ay leedahay dhab aa isku siinaysa caareyda ka bixi ko kadibna dhab sii. lix gram waaye bacda kaligeed saa u jeedtiin. Marka wataas kiiladiina watan asaan u soo xirxiray. Intaan idin tusi laakiin kulli waan soo xiray way xiran yihiin. Midaan kor saaran nus kiilo waaye tan hoos taalana kiiladii waaye. Marka waa idin tusaa kulli inta kale iyo midaan sauce-ka lahayn iyo midda sauce-ka lebo. Waa kuwaas. Qaybtan sideedan ku soo sameeyay. qaybtan xawaajiyadii aan ku soo daray. Marka intaan waxaan haysanaynaa qaybtii kale oo lugaha u galaynaa insha Allah. Wataas. maasha Allah tabaarakallah. qaybtii kale aan soo dhaqaynaa aan soo nadiifinaynaa insha Allah. kadibna haddana bacyadii aan ku soo xirxiray ayagana isla sidii aan soo sameeyay laakiin waxba ma jarjarin waxaan ku sameeyay malahan.
saddex aan soo xiray. qaar aan kasoo reebay. Marka qaarta aan kasoo reebay waxaan rabaa inaan karsano. Haddaba barafkan aan geliyo ma rabi. Inta waxaan kusoo shubay inta saabs hadaa idin tusaayay ama xawaajiyal aan idin tusaayay. Marka lugayaan rabaa inaan isku soo qaso. Intaan kusoo ridaa waan qasaa insha Allah abbaar ha inoo yaalo. Kadibna waan soo diyaarsanaynaa ayagoo diyaarsan oo idin tusaa insha Allah. saacado kadib waan isku soo laabanay. Si fiican isku soo dhexgaleen. Marka waa ka fariiska aan kusoo kariyay kow. Kadibna markay bislaatay kadib hoosa waxyaan kusoo qalajiyay aan kusoo gaduudiyay. Intaan ku wada kulmayno fiidiyowga xiga. Assalaamu calaykum.